degmada iyo ku-xigeenka duqa oo keliya ayaa xasaanad leh inta ay xilka hayaan. xubnaha kale ee golayaasha deegaanku wax xasaanada ma yeelanayaan waxaana loogu yeedhayaa xubno golo degaan mana bannaana in loogu yeedho xildhibaan. sidoo kale qodobkan waxaa lagu soo kordhiyey farqad shanaad oo u dhigmaysa sida sidoo kale qodobkan waxaa lagu soo kordhiyey farqada shanaad oo u dhigmaysa sidan haddii duqa iyo ku-xigeenkiisa lagu soo eedeeyo lubsi hanti qaran, musuqmaasuq, xulgudasho la'aan iyo fallid ku ah qarannimada Somaliland, waxaa xasaanada ka qaadidooda waxaa la ogolaanayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland iyadoo la